that means ma ahan raguna inay noolaan karaan gabdhaha kaligood gabdhihiina ma noolaan karaan rag la'aantood waa la isu baahan yahay Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku leeyahay wa min ayatihi anna khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun wuxuu idin sheegay Allah subhanahu wa ta'ala markii yani markuu noomina sheeganayo ilaah oo intuu waxyaabo kastana tuso wuxuu ku leeyahay bal fiiri calaamad miyaysan idin ahayn inaan isu abuurnay rag iyo dumarkii maxaad isugu abuurtay Allah subhanahu wa ta'ala ma isweydiisa Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu iskugu abuuray rag iyo dumarka litaskunu ilayha inay isku xasilaan inay isku degaan kadibna galgacayl iyo naxariis inay dhaxdooda ilaahay uu soo dhaxdhigo saan ogsoonahay anaga Soomaali markaan nahay culturally guurka waan guursanaa laakiin micnihiisa mugiisa weyn ma fahansaneen guri kasta waa dhisan yahay laakiin gudihii buu ka ololayaa waxaad arkaysaa gabar qurux badan iyo wiil qurux badan oo markay aragto aslaada wallahi way isu qalmaan labadan ma sha Allah laakiin markii aad la fariisatay daqiiqad kamid ah markaad aragtid dibka ayada ay sheeganayso ama dibka asaga uu sheeganayo guurka dhan baad nacaysaa marka guurkeena maxaa naga haleeyay miis weydiina 25 sano dalkeena Soomaaliya uu burbursan yahay ma dhisna sababta koowaad uu dhismi la ayaa waxa kamid ah faamiladii baan dhisnayn qabiil inta aadan fiirin ha aadan qabiil ha aadin reer hebel baa wax sameeyay laakiin waa inaad tiraahdaa gurigi horta aan ka soo baxay aniga ahaantay shakhsinimadayda gurigi aan ka soo barbaaray guri see abu ahaa gurigi aad ka soo barbaartood ka soo baxday ganjaalka iridka aad ka soo istaagtay qaabkii uu ahaa baad banaanka iyo bulshada kula dhaqmaysaa hadduu ahaa guri violence oo markasta dhibaato ka dhex taagan tahay oo markasta muran ka dhex taagan yahay oo hooyada iyo aabaha markasta is haystaan oo familku isan ahayn family isku duuban banaanka markaad timaado ma taqaan dadka sida loola dhaqmo waayo background-kaaga wax ka khaldan yahay marka waxaan rabnaa inaan share gareeno maxaa ninka looga baahan yahay maxaa sanaagta looga baahan yahay gabadha looga baahan yahay afwan ninka iyo gabadhiisa xaaska waxa looga baahan yahay qofba qofka kale saan idin sheegay qofba qofka kale inuu priority-ga siiyo marka ninkaaga priority-ga siisid yani qofka kale inuu ka dhigo qofkiisa koowaad haddii aad ninkaaga muhiimadda siisid waxaad ogaataa gabar yahay adigana inuu muhiimadda ku siinayo laakiin saan ogsoonahay muhiimadda waxaan siinaa asxaabta xaajigii baa jooga gurigii buu jiifaa ma kala jecelin banaankan gabdha la fadhiyaa xaafad heblaayaan qaraabo kiilo u aaday asxaab haddii la yimaado asagii korkiisa ma kala jecel albaabka u soo riix baan leeyahay waa inaad asaga muhiimadda siisaa priority-ga koowaad markaad asagii muhiimadda siisid kadib adigana muxuu ku siinayaa muhiimadiisa saan ogsoonahay Allah subhanahu wa ta'ala rasuulka kaleey sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri addunya mataa' fa inna khayru mataa'i ad-dunya al-mar'atu as-salihah adduunyadu waa raaxo laakiin yee raaxa u taha waxa qofka ugu khayrka badan oo adduunku raaxaysto waa qofkii hela haweeney wanaagsan waa meesha hadda Englishka aan ka dhahno Englishka marka la fiirinayo every successful man there is a behind of women nin kasta oo guuleysta waxa ka dambaysa gabar that means ninkaaga hadaad mar walba priority-ga koowaad siisid waxaad soo saartay aabihi carruurtaada nin islaameed maadan soo saarin guriga hooyada markaad joogtay wax kasta waa helaysa maxaa uga maarmi weysa inaad guursatid maxaa u soo raasatay inaad guursatid haddaadan nolol isa siinayn asagii haddaadan siinayn asagina aadan ka keensan karin maxaa u guursatay gabdhayo secondly guurka aan guursano anaga Soomaali ahaanta wuxuu ku base garaysan yahay oo mar walba focuska u saaran yahay guur la dhaho inaan wax dhalo hada intiina hada idin weydiyo aan dhaho maxaa u guursatay jawaabta koowaad ay siinayso waxay tahay awlaad inaan helo isn't it wali ma idin ku jirtaa gabar ku fikirto istir nolol fiican baan rabaa nolol wanaagsan baan rabaa nolosha wanaagsan saa u egtaa ma banaqaane awlaada ilaahay baa keenay inta inta isguursatay awlaadana isu dhalin
ألف هو ألف كمانان ما أنا هدف كاجا إنها تكون حرتي مرة والبعد جورسنا يصير كو جرجاجا هاي هذا مركا كبحيسد ما أنا نكا أنا أورع كذي أولاد بهربا أولاد إلهي باكوسين كرا أصار الزاقة أولاد إلهي باكوسين كرا لكن وأين ترى هذا مركا جورسنا يو وحقوق جورسنا يا نلول في عن قف وناكسن إنا هلو وايو قفنا قف كلا جرب كيسة كمان مرة ويلاش كمان مرة قبلها ويلاش أنا كمان مرمان لكن واحد أنا بريها وحاسعت عارين لده ويلاش الصوماليات رومانتيك ما أهن قبل إلا قبل ما أهن قبلها يركض صوك عي كلمة سيدة هيان قبل إلا قبل محل هذا والله بالله إني مك الصوماليات نول مله والإسكال نولنا أولاد أصدرت وضم كل نولنا إذا أنت معناه هذا ما أهن قبلها هذا صوك عي كذي إنا كهذا ورتنا قبل وريستا محل كل هذا والله إلهي بأولاد إجسي ما أهنه أولاد أصدرتي سأولاد جوجاي ما بلا جوجين بقى لكن ويلاش محا أدا الله صار ميس ويديسين have you read yourself أديك ميس آخر سهرتا ويلاش الصومالي الرومانتيك يا كده يكره إذا كده يكره